gabagabayahay salaada ciida iyo sidii loo tukan lahaa salaada ciida طبعا waynu naqaanaa oo waynu tukan jirnay wala isla tukan jiray dadkuna inta badan maadaama salaad cibaadadu ay soo noqnoqotay inta badan way yaqaanaan oo way garanayaan laakiin waxaa keenay hadda inaynu waxoogaa isdul taagno arrintan duruuftii lagu tukan jiray ayaa wax badani caalamka intiisa badan iska ka gedisan tahay waqtigan hadda aan joogno caalamkii inta badan kala xidhan masaajidii oo xidhan goobihii caamka oo la isugu imaan karin marka sidee loo tukanayaa salaadii ciida duruuftan xanuunkan uu keenay coronavirus-ka dadkii noloshoodii kala xidhay dad badan isu imaan karaynin sidii loo tukan lahaa ayaan jeclahay insha Allah taala inaan wax yar ka tilmaamo qodobka koobaad aan jeclahay inaan tilmaamo waxa weeye salaada ciidu nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam baa jideeyay noloshiisana nabigu kama tagin sallallahu alayhi wasallam intii la jideeyay wuu tukan jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam ummadana wuxuu amray inay u soo baxaan oo xataa la soo saaro dumarka gabdhaha aan wali guursanin guryaha kamayna bixi jirin xataa gabdhaha in la soo saaro in xataa la soo saaro dumarka caadada qaba in xataa banaanka ay u soo baxaan oo ay ka qayb galaan ciida ka qayb galaan ducada muslimiinta ka qayb galaan salaada iyagu ma tukanayaan nabigu sallallahu alayhi wasallam marka aad buu ugu dadaali jiray sallallahu alayhi wasallam salaada ciida mudnaan khaasa ayaa la siin jiray ciidan marka ciidul fitriga ramadaanka dhamaadkiisa gasha waxay ka mid tahay labada ciidood ee waaweyn ee muslimiintu leeyihiin tan waa ciidul fitriga mid xajka muxuu ahay dhexdiisa ana waa ciidul adha taa dambaana weyn labadooda ciidul adha labadooda weyn tan ciidul fitri way labadooduba cibaado weyn oo cibaadaadka kamida ayay ama ku dhex jirtaa ama ka dambaysaa ciidul fitrigani soonkii oo tiirarka islaamka kamida markuu dhamaaday ka dambaysaa ciidul adhaduna xajkii oo tiirka shanaad ah ayay iyaduna maalinka tobnaad bay gashaay oo acmaashii xajkii ku dhex jirtaa maalintii xajkii oo gabagaba ah bay iyaduna gashaa labadaas ciidood waa labada ciidood ee nabigu sallallahu alayhi wasallam uu jideeyay waxa saddexeeyay ciidaha muslimiinta waa ciida usbuuca oo jumcada ah haddaba salaada la tukado ramadaanka kadib ramadaanku markuu dhamaado salaada ciidu nabigu maadaama uusan ka tagi jirin daa'imi jiray xukumkeeda ay fuqahadu isku khilaafeen qaar waxay leeyihiin waa sunno adag oo waajib ma gaarsiisna sida maalikiyada iyo shaafiiciyada kale qaar waxay leeyihiin waa waajib sida xanafiyada kale maxay nabigu sallallahu alayhi wasallam amray kama tagin waxay ku tusaysaa inay arin culus tahay qaar waxay leeyihiin waa fardul kifaaya oo hadii bulshada qaar kamida sameeyso qaar ka kale dambigi waa ka dhacaya adigu tafaasiisha fiqiga ah ayaa ku jirta xukumkeeda ma waajib ama waa sunna marka laga hadlayo xagee lagu tukadaa salaadaas nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam xadiistiisa sida ku sugan masaajida muusan ku tukan jirin nabigu sallallahu alayhi wasallam banaanka ayuu u bixi jiray meel musalla la yiraahdo oo waxa jira ka baxsan masaajida ka baxsan oo dadku u wada bixi jireen oo nabigu salaada ciida u aadi jiray sallallahu alayhi wa alihi wasallam sida marka waxa weeye inay cudurdaar yimaado mooyaane oo midalan roob dadkii xanibo ama la bixi kari waayo ama duruufo kale soo kordhaan sida hadda taagan oo kale mooyee asal ahaan waxa weeye in banaanka loo baxo oo banaanka lagu tukado masaajida lagala baxo salaada ciida ayaa asal ah waa sidoo nabigu sameyn jiray sallallahu alayhi wa alihi wasallam salaada ciida hadii isu imaadkiisu roobi waayo asal ahaan fardina waa loo tukan karaa jamaacana waa loo tukan karaa jamaacadu in la wada tukado dad badan wada tukadaan oo la isla tukado waa sunnay leeyihiin laakiin sharti uma aha salaada sixadeeda salaada xataa iyadoon duruuf adagi jirinba oo dadku ay soo imaan karayaan hadduu ruuxu goonidiisa u tukado culimada badankood waxay qabaan salaadaasi waa asaxaysaa
marka jamaacada iyo wada tukashadu asal ahaanba waxay leeyihiin waa sunnay qabaan in badan oo kamida culimada muslimiintu xilligii saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxaa dhici jirtay haddii ruuxa ay salaada imaamku dhaafto oo uu maalan dadkii bannaanka ku wada tukanhayay salaaddii baa ka hor dhacday waxay samayn jireen guryahooda caruurtoodii iyo ehelkooday tujin jireen qaar gooni bay isaga tukan jireen sida uu tilmaamayo atharka Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu warḍاه ibn Abi Shayba iyo Bayhaqi waa soo saaray waana saxiix وكذلك بخاري با تعليق كوريي سو معلق بصيغه الجزم وحليه أنس بن مالك صلاه عيد امامك ولا تكنيا haday dhaafto wuxuu kulmin jiray ehelkiisa gurigiisa dadku nool kulmin jiray fasalla bihim mithla salati al-imam fi al-eid markaas wuxuu tujin jiray salaadii uu imaamku ciida ku banaanka ku tukaday mid lamida ayuu ehelkiisa iyo dadka gurigiisa tujin jiray Anas bin Malik khaadimkii nabiga sallallahu alayhi wa alihi wasallam marka taa waxaynu ka qaadanaynaa duruuftan hadda taagan xanuunkan uu keenay dadkii la kala xidhay ee guryaha lagu xareysan yahay ee aan meel banaan la isugu imaan karin ayadoo naftii bini aadamka iyo caafimaadkii loo baqayo waxaan helaynaa in aan guryaha ku tukanno oo salaadii ciida sidii salaadihii jamaacaadka ee waajibka ahaaba masaajidii markii la xidhay guryaha loogu tukada loo yiri guryaha lagu tukado salaada ciidana sidoo kale guryaha ayaa lagu tukanay insha Allah taala kolba dadkaas wada degan ee guriga ku wada nool ayaa wada tukanaya deelaha qaar kood masaajidu u furan yihiin ayagu ama banaanadaba tagi kara mushkilo male laakiin waxaan ka hadlayaa duruufta hadda anagu aan ku noolahay kala dadka ku nool oo masaajidiina la isugu iimaan kareynin banaanna la isugu tagi kareynin markaas waxa weeye salaadii ciida waxa lagu tukanayaa guriyaha ayaa lagu tukanayaa xilliga la tukanayo intii heli karta guriga dadka wada joogana imaam bay yeelanayaan oo way ku imaamkoodaas iyaga istujinaya ruuxii keligii ana kelinimadiisu u tukanaya salaadu insha Allah taala waa labadii ragcadood waa tilmaami doonaa qaabka loo tukanayo insha Allah taala xilliga salaadu waxa weeye markay qorraxdu soo baxdo wax yarna ay godka kor uga soo kacdo ayay soo galaysaa xilliga salaadu oo macna wax way qadar rumxin waran qiyaastiisa ama qadarkiisa markay dhulka ka soo kacdo oo kor u soo baxdo xilliga hadii la gaaro salaada waqtigeedii waa la gaaray مثلا anaga oo kale Nairobi markaan joogno taqriiban 5:27 mise 5 iyo bar meelahaas ay qorraxdu noo soo baxaysaa marka hadii 20 daqiiqo lagu daro ama nus saac kale lagu daro hal saac oo kale waxaan ilaha 6 afwan anagoo kale qorraxdu waxay noo soo baxaysaa 6 iyo 25 27 noo soo baxaysaa marka ilaa yani wax weeye hal saac ama 7 subaxnimo ama iyadoo 10 daqiiqo dhiman muxuu waa la tukan karayaa macna wax weeye xilliga shuruuqi qorraxdu soo baxday hadii 20 daqiiqo lagu daro oo intay kor u soo yara kacaysa ama 15 daqiiqo kifaayo way xilliga hadii la gaadho salaada waqtigeedii waa la joogaa waa la tukan karayaa muxuu salaadii ciida waxay yiraahdaan fuqahadu waxa fiican si dadku ay u helaan chance ay ku bixiyaan zakatul fitriga in salaada waxoogaa dib loo dhigo salaada ciidul fitriga بينما صلاه عيد الاضحى وميد عيد dambe ee carafada salaadeeda iyada waa la dadajin bay dhahaan si dadku ay jaanis ugu helaan inay udxiyadii xoolihii gowracaan ila salaada gadaasheeda la gowracay labada salaadood marka sidaas ay yiraahdaan laakiin ruuxii zakatul fitrigiisii bixiyay banaan la isugu imaanayana uusan jirin xilliga horeba hadayba qorraxdu soo baxdo wax yarna kor u soo kacdo salaadiisa uu iska tukani muxuu waqtigii waa la jooga waqtigeedu waa waqtigaas weey macna salaada ciida ama han noqoto midda carafo ama middan ciidul fitriga soon ka dambaysa han noqoto salaadeeda labada salaadood isku qaab baa loo tukada salaada ciid waa isku qaabka loo tukanayaan waa sidan soo socoto maadaama dad fara badan laga yaabo inay muxuu ahaayay imaamka markay la tukanayaan mooyee kaligood haday tukanayaan
laga yaabo qaabkii loo tukan lahaa inay waxoogaa ay garan waayaan baa dhici karaysa inaan marka waxoogaa wax yar sharxaan jeclahay salaadu horta waa 2 ragcadood labada ragcadood waa sida soo socota marka hore ruuxu markuu salaada galo oo Allahu akbar yiraahdo intuusan faatixada akhriin wuxuu 7 goor dhahayaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 7 goor buu saas dhahayaa takbiirta uu ku galay Allahu akbar ta salaada uu ku galayo waa mid taa kuma jirto 7 kale ayuu takbiirsanaya 7da markuu dhameeyo ayuu marka faatixada akhrinaya faatixada markuu akhriyo wuxuu ka dambeysinayaa suurad kale haduu yaqaano ragcada hore faatixada nabigu wuxuu ka dambaysiin jiray suuratul a'la sabbih isma rabbikal a'la hadaadan sabbih isma aqoonina suurad kale qul huwallahu dheh birabbin nas dheh birabbil falaq dheh suurad kale faatixada ka dambaysi kadibna waad rukuucaysaa waad ka soo toosi labadii sujuudood baad caadi ula iimaan hal ragcad baa saa kuugu dhamaatay ragcadda labaad markaad u soo istaagto oo dabcan marka ragcadda laga soo istaagay Allahu akbar baa lagu soo istaagaa markaad istaagto Allahu akbarta aad ku soo istaagtay mooyee 5 kalaad hadana ka daba dhahaysaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah 5 baad dhahaysaa kadib markaad 5taas dhahdo faatixadii baad akhrin suurad baad ka dambaysiin nabigu wuxuu ka dambaysiin jiray suurat hal ataaka hadithul ghashiya hal ataaka hadithul ghashiya hada taqaano hadada ana qoonina suurad kale ka dambaysi qul huwallahu suuradii aad kari karayso adiga taqaano markaad faatixada akhrido suurad ka dambaysiiso kadib waad rukuucaysaa rukuucdaada markaad dhamaysato labadii sujuudood baa ka dambeeyay atahiyaadkii baa ka dambeeyay salligii sidaas aad salaadaadii ku dhamaysanaysaa marka labada ragcadood midda horena waxay leedahay 7 Allahu akbar midda dambana waxay leedahay 5 Allahu akbar oo faatixada ka horeeyay sidaas ay marka insha Allah taala ay ku fududahay wax adag ma ah gacmaha kor ma loo qaadaya dib ma laha hadii kor loo qaado walaw nabiga sallallahu alayhi wasallam nascad kaga ma sugna laakiin saxaabadiisa qaar kamid ay ka sugantay Abdullah ibn Umar oo kale aimada madhabka Imam Shafi'i iyo way qabaan marka hadii gacmaha kor loo qaadana dib ma la insha Allah taala khudbada ciida ma la akhrinaya laazim ah khudbada asalhan waxa loogu talagalay banaanka weyn ee la isugu imaanayo iyo imaamku khudbaynaya حتى xilliga uu dadku isu yimaadeen oo bankiga banaanka la isugu yimid uu dadka u khudbaynayo khudbadaasi salaada laazimo iskuma xidhna hadaan la khudbaynin salaadu waa asaxaysa marka khudbada waxa laga rabaa imaamka guud meesha guud ee la isugu imaanayo laakiin haday dadku gooni u tukanayaan sida hadda aan ka hadalno kale iyo duruuftan in haysata oo guryaha lagu tukanayo ama ruuxu goonidiisa u tukanayo markaasi khudbo laazim ah khudbo yani wax way waa la isaga tagaya labada ragcadood baa muhiima salaaduna hatta hadii duruuftu caadi tahay khudbada in la dhageysto waxba laazima waa kii nabiga sallallahu alayhi wasallam waan khudbaynaynaa kii rabowna dhageysto kii rabowna isaga tag sidaas way macna marka salaadii ciida sidaas loo tukan guryaha lagu tukan ruuxii keligii uu iska tukan kara dadkii muxuu ahaayay guri ku wada nool gurigooda ku tukanayaan hal imaam bay ku samaysanayaan sidaas aan sheegnay ayayna salaadii u tukanayaan u sharaxnay sunnada nabiga waxa kamid ah sallallahu alayhi wasallam salaadan ciida ciidul fitriga intaan la tukanin ama loo bixin in wax la cunaa fiican waliba timir dhowr xabo timira oo tira isdheer ah in lagu afuro xadiidka Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ardaa sida uu sheegayo kaana la yaghdu yawm al-fitr hatta ya'kula tamarat nabigu muusan kalihi jirin ciidul fitriga ciidan muusan u kalihi jirin ilaa uu timira cuno xabada timir ah riwaayad kale waxa uu kaana yaakuluhunna witran tira isdheer buu u cuni jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam yaani wax way 3 5 7 tirada isdheer intaan salaada la tukanin in wuxuun afka la geliyo hatta timir hadaadan haysanin wuxuun in afka la geliyo la cuno wax la cuno ayaa sunnada ah salaaduna markaa ka dambayso waxa sida ka duwan ciida carafada ayada waxa fiican marka salaada laga soo noqdo kadib in la cunteeyo ciidan hadda aynu ramadaankana
يعني إنتان صلاة لتكن إن عنت الله عنه تمر جارهان لعنه أيها النبي صلى الله عليه وسلم هدي جيسية يطريق رسولك صلى الله عليه وسلم إنه تشدي وحكلته أيضا مهمة مسألة قبيسك وأيضا إن بدل ليسوي ديو أيضا وحوي لما لإن القبيستوي في عنتهاي لو وصل عيدها إن لو قبيستين نص عاد النبي كسوغان مجد صلى الله عليه وسلم لكن صحابتي سقار كم إذا كسوغان تهاي إمام الشافعي إمام مالك يا أئمة ويقبان gaarahaan markii la isu imaanayo meel dad isugu imaanayaan ay tahay sida salaada jumcada oo kale si ruuxa muxuu ahaay aan looga dareemin muxuu ahaay wax jirkiisa ka soo baxayo oo la kahado si aan loo dareemin bal in la isudgiyo la iscarfiyo dharka quruxda badan la qaato dhar cusub haduu yahay kaagi horood nadiifsatay haduu yahay laana ciidani waa shaciiro weyn oo calaamad weyn oo calaamaadka diinta kamid ah weeye in la farxo la damaashaado muxuu ahaay cibaadadaas weyn lagu damaashaado waxyaalaha mubaaxaadka ilaahay inoo baneeyay lagu damaashaado muxuu ahaay ayay kamid tahay oo leynoogu jideeyay la muujiyo marka cibaadada in la yaani wax weey in la muujiyo walow hadda duruufahan aan hadda ka hadlaynay ina haysta ay tahay xaalad istitnaa'iya oo hore inoo soo marin haddana inta tabarteena inaynu cibaadadaasi muujino oo muxuu ahaay ciidaasi muujino shaciirada weyn la muujiyo kolba intii dabara iyo duruuftu kolba intay saamaxayso ayadana wax weeyaan waa laga maarmaan waxaan ku gabagabaynaynaa ramadaanka gabagabadiisa iyo soonka dhamaadkiisa waxyaalaha aad leynoogu jideeyay ilaahay aad u jecel yahay waxa kamida inaynu badino takbiirta sida ilaahay tabaaraka wa taala inuu yiri oo inuu sheegay soonka markii uu aakhirkiisa ka hadlayay walitukmilu ciddata walitukabbiru allaha ala ma hadakum si aad muddada u dhamaystirtaan ilaahayna u weynaysaan hanuuninta uu idin hanuuniyay daraadeed walaallakum tashkuruun inaad ka shukridaan ilaahay tabaaraka wa taala wax weyn buu inoo waafajiyay bishii baa inoo dhalatay way inoo dhamaatay marka allah in la weyneeyo oo qalbiga ka weynayso carabka ka weynayso dhaqan ahaan iyo xubnahagu weyneeyaan rabbi tabaaraka wa taala hidaayada iyo hanuunintu ina hanuuniyay khayrkii badnaayo ina waafajiyay inaynu ka shukrino takbiirtu marka wax weeyaan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar takbiirtaasi ciidaha la qaado hatta hadii banaanadii iyo meelii la isugu iimaanay masaajidii suuroobi kareenin guryaha iyo xaafadaha iyo jidadka la marayo takbiirta in kor loo qaado ayadana wax weeyaan waa hadiyigi nabigeena sallallahu alayhi wa alihi wasallam waana shukri aan ka shukrinayno oo nu mahad celinayno Allah tabaaraka wa taala khayrkii wanaagu ina waafajiyay ilaahay tabaaraka wa taala takbiirta ayada waxay ku egtahay waxa la bilaabayaa isla habeenka ciida ila subaxda ciida la wadi karaya markii salaada ciida la tukadana takbiirtu markaas ay ku egtahay waxaan ku gabagabaynayaa munaasabada ciidan inoo soo socota ilaahay tabaaraka wa taala nabadha inuu gaarsiiyay waxaan aad uga digayaa waxa badan ciida marka la gaaro inay dadku damaanshaad iyo fantasiyo iyo waxyaalo fara badan ay sameeyaan walow hadda laga yaabo wax badan inaysan sidii u dhicin haddana waxa dhex gala iyadoo banaan tahay inaynu damaashaad iyo muxuu ahay reereyn iyo farax iyo waxyaalo badan inaynu muujisano nicamka ilaahay ina siiyo tabaaraka wa taala haddana marar badan waxa dhex gala munkaraad iyo mukhalafaad shariicada khilaafsan iyo waxyaalo aan loo baahnayn waxyaalo badan oo dhaqan xumo ah waxyaalo badan oo khaladaada ay dadku ku kacaan oo faraxa iyo damaashaadkaasi u geeyaayo uga sii gudbaan arintaasi marka waxa weeye laga taxadaro ilaahay nicamku ku siiyay Soomaalidu waxay yiraahdaan 100 sano waqti ku afur inta Ramadaan oo dhan soo soomanayso cibaadaysanaysay inaad ciida aad muxuu ahay aad qasato oo aad macaasi iyo dunuub iyo khaladaad iyo si khaldan aad farxi u isticmaasho waa halis weeye waa khalad weeye meelahaas oo kalena waa munaasabaad kala doonayo in ilaahayna la xuso tabaaraka wa taala nicamku inuu siiyay ka shukrino yaani wax way aadna isu ilaalino gaar ahaan caruurta iyo daayarta in aad loo ilaaliyo laga ilaaliyo in aysan yaani wax way waxyaalo khaladaadka iyo yaani munaasabadan inaysan yaani wax way ayna u gudbin waxyaalo ilaahay tabaaraka wa taala ka cadhoonayo waxyaalo shariicada khilaafsan waxyaalo laga yaabo muxuu ahaayay inay xataa cibaadaadkooda saameyn ku yeelato aakhiradooda in aadi aad looga taxadaro laga ilaaliyo way ilaahay tabaaraka wa taala soonka maalmaha inoo dhiman
ها تكبيرتا مساجد إني كبحضو في عنتهاي مساجد لقى تكبير صدو الله أكبر لقى يدهدو waxay ka mid tahay mikrofoonadaasi maadaama hadda nidaam diidayna uusan jirin shaciiradii kor loo qaadayna ay ka mid tahay sida aadaanka hadda masaajida looga aadaamo in takbiirta laga qaado mikrofoonada aaday u fiican tahay waxay ka mid tahay walitukabbiru allaha ala ma hadakum takbiirtii shaciiradii la cilaaminay bay ka mid tahay marka bisha waqtiga inoo laaban ilaahay nabad ha inoogu dhameeyo ilaahayna tabaaraka wa tacaala cibaadadii iyo acmaashii iyo khayraadkii aan samaynay إلهي هينا أقبله قبولك يا مهمة إلهي هينا أقبله وإلهي تبارك وتعالى هينا قدام بدافه والله تبارك وتعالى عباداتك كليه قدم بذكر الصونك إيو صلاة عيدين هذا كهاللينين إلهي سيدوك له هينا فضودية هينا أقبله الله تبارك وتعالى في ختام هذه الجلسة وحويدي سنة إي رمضان كجبدي سبا إن إلهي تبارك وتعالى مصيبة إن وهب ستي إن إلهي تبارك وتعالى إن قاضه وإلهي تبارك وتعالى عافمات إنه بدله إلهي تبارك وتعالى أنت لمتي إنه نحرسته أنت جرن عافمات كودي وين إلهي تبارك وتعالى عافمات كودي أسوأ عليه إننا إلهي تبارك وتعالى إن قبض باديو هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم